waxaa maanta garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ka soo degay safiirka Imaaraadka u qaabilsan wadanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalkaasi Soomaaliya waxaana garoonka diyaaradaha Cigaal ku soo dhaweeyay wasiirada wasaaradaha macdanta iyo tamarta wasiirka wasaaradda dib u dejinta wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo mas'uuliyiin kale سفير محمد العثمان ومركي جوهر يسوي سفر كوي مادو ودن كجمهورية سوماليلاند انتاسي كتب وحقول كان نسشة مداركا كلها الله يحبنا كمدا وسيردي سود ويجي وحنيش يجن إن يتهاي مركي جوهر يسوي سفير محمد العثمان وودن كيمادو taasina ay muujinayso dadaalka xukuumadda uu garwadeenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Tilaanyo aad baan farxad weyn ay noo tahay dawlad ahaan inaanu ku soo dhaweyno safiirkan muhiimka ah dal xiriid aad u adag inaga dhaxeeyo Imaaraadka Sultanka Imaaraadka markasta dawladda Soomaaliland waxaan diyaar u tahay inay soo dhaweyso safaaradaha wadamada aynu jaarka nahay iyo kuwa aynu xiriirka la leenahay mashaariic badan oo ay dawladda Imaaraadku ugu baaqday wadanka Soomaaliland inay ka sameyn doonto ayaa iyaguna jiro laga hadli doono waa safiirku waa markii ugu horeysay waxaad moodaa in albaabadu ay furmeen in arabihii aan hore u iman jirin badana ay maanta safiiradoodii la soo dirayo taasina waa siyaasadda dawladda ee furfuran maanta keentay in ay cid walba ku soo hoyato goobta nabadda ah sidoo kale gabagabadii waxa la soo mariyay sharaaciyada kala duwan ee suuqa weyn ee magaalada Hargeysa isagoo indhihiisa ku soo arkay kala dambeynta iyo nabadgelyada ka jirta wadanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida loo ganacsanayo